iyadoo hormuud ay ka tahay wasaaradda arrimaha islaamka dhaqanka iyo hantida waqfiga macadka fanka ee Jabuuti ayaa isagu qabanqaabiyey saaka xuska maalinta qaran ee fanka isla faalada warkanina waxay noo soo eegtay Aamina Xuseen. xuska maalinta qaran ee fanka waxaa saaka hormuud ka ahaa wasiirka dhaqanka iyo arrimaha islaamka aadan xasan aadan waxaana kasoo qayb qaatay xubno kale oo xukuumadda kamida Dr. Jaamac Cilmi Cukiye iyo Sahra Yuusuf Qayaada waxaana lagu qabtay macadka fanka ee iidaaga lagu soo gaabiyo iyadoo ardayda halkaasi wax ka barata ay kusoo bandhigeen ciyaaro iyo qoobka ciyaara xuska maalinta caalamiga ee sidoo kalena ah maalinta qarannimo ee fanka ayaa halkaasi ugu horeynba waxaa lagaga hadlay amba laga qaaday heesta astaanta oo ah calanka dalka munaasabadaasi waxaa ka hadlay agaasimaha macadkaasi iidaaga Xumed Maxamed iyo waliba agaasimaha wasaaradda arrimaha islaamka ee dhinaca dhaqanka iyagoo ku nuuxnuuxsaday dadaalka loogu jiro horumarinta dhinaca fanka. kadib waxaan wareysanay qaar ka mid ah fanaaniintii iyagu ka qayb qaatay munaasabadaasi lagu xusayay maalinta qaran ee fanka oo iyagu noo sheegay ahmiyadda uu leeyahay. bay u socotaa oo si fiican bay noogu dhacday waxaana la soo qabanqaabinayay muddo laga soo shaqaynayay waa maalintii fanka iyo fanaanka waxaan maanta noogu magac daray farshaxankaasoo aan la moodaynin inuu fanka ka mid yahay waxaan dadka u sheegaynaa farshaxanku inuu yahay fanka qayb ka mid ah aanu ahayn wax kale oo meel kale ka yimid amba laangooniyahoo fanka ka baxsan inuu ahayn maan dadka u sheegaynaa siday noogu dhacdayna waydinka arkayo farxad weyn baa yaan ka qabnaa maanta halkuu jooga fanku maalinba maalin buu tallaabo soo qaadayaa tallaabo hor loo qaadayaa dalka aad baa looga taxgeliyey dibaddana wuu u tallaabsan doonaa fanku insha allah wasiirku siduu u hadlay waxay ahayd si cajabiso wuxuu yidhi fanku waa muraayad madow ninka ka gashadow waad qaldan tahay muraayad caddoo aad ku tusta gashuu yidhi sax weeye hadalkaasi waa run muraayad madow in laga gashada maaha fanku waa muraayad la yska daawado oo muraayadda dadweynaha waxa weeyaan ka wax saxa ka lagu mabsuudo ka lagu raaxaysto ka lagu dagaalgalo ka lagu dadaalo ka lagu maartay qiira ku geliya intaba uu leeyahay laan kasta uu leeyahay. kaasina wuxuu ahaa abwaankii weynaa ee aadan afarax. kadib waxaa halkaasi ka hadlay munaasabadaasi wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo hantida waqfiga mudane aadan xasan aadan oo isagu sheegay in dhaqanku uu yahay muraayadda bulshada. cidda ka haysata sawir qalad ah fanka yani oo haysata inuu yahay wax aan fiicnayn waxaan leenahay muraayadda madowha aan iska dhigaan ha u gashadaan muraayad cad oo si fiican wax ugu arkaan iyo fanku wax kale ma aha way jiritaankeenna way danteegeenna innaga waa emotiongeena iyo waxaan odhan karnaa inuu yahay le miroir de la société waa muraayadii waxa weeyaan ummad walba markaa waxay iska akhrisataa fanaankeeda iyo fankeyga ay iska akhrisataa oo iska aragtaa maantana waxaad na tusteen wax runtii aad iyo aad qurux badan haddaad tihiin fanaaniintii farshaxanka gacanta maanta waxaan u hibaynay farshaxanka gacanta waayo fanka laama badan yahay macahadkuna maalin ka dambeeya uu sii ballaadhanaya oo sii fidaya kulba waxbaa ku soo biiray sanadkan waxaa ku soo biiray oo cusub oo in la sheega ay tahay sida dhagaxa loo qoro oo inaga inagu cusub oo aan stiga hore uga jirin ayaan ku soo darnay haddii la yidhaahdo sanadaha dambe markaa fanan cusub oo aan jirayno dadku ay fanba moodaynin ayaan daawani doonaa adduunyadana kaga qaybgeli doonaa tartanada haddii ilaahay